لكن waxaan tilmaamaynaa waxa weeyaan in la yiraahdo xorriyatul qowlka France ka jira ma ogola in mas'alada laga hadlo ama nabi maxamed ku cayaarkiisa intuu Holland soo taago madaxweynaha Francisco inuu yiraahdo xuquuqdayada meel laga xadgudbay xuquuqul qowlka xorriyatul qowlka meel laga xadgudbay waa kalaama waxba ka jira Francisco ha qaato الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا محمد رسول الله وقتنا ينشوغنو مركي المسلمين تتمرقبين الدنيا أي سيطريين أما أي قعنتو ذاك الشيء عدان إلهي الرسول طون الرميسنين هدي دقالتهاي يا هدي سياستهاي يا هدي عسكري حوقتهاي قعنتو ذاك الشيء أي وحكى بلا مي مركي مسلم كالدقالي الليني وحكسته وكلا لغلق عي حتى إنا يمريسو مقدسات كودا واوين إن القرآن جرائدك أن معناه بدن لهين السخرية الله تعالى جريدة هذا اللي نبي وحكشت عليه الصلاة والسلام ما هي جريدة علمية أما فكرية أما ثقافية وجريدة كون مشاكلية لا استعمال كوميديا يو إن ذاتك الوجهس جالسه حد بيسوق قال مركا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونوضع عدة الوجهس جيسي درسي قال مركا عاوة وحن كنت لقى لينا تلمامة أو قرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدا ومسلمك وقيميي أمر ربي كتاب كيسا وقيميي إيو بشرك أنت وحقرتك وأن حتى مركا الرسول نما وآمن سنين سيدا يوقي مايين بني آدم كحقوك جوجه مركب قف بني آدم اللقوقي مايو واحد من البشر هذا ضر ما يستطيعون يهي قيمة انتلق بشرية كلية كوان رمي سنين كدينهان سيدا وأركان taasi waxay muujin kartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qadarkiisa iyo maqaamka uu taagan yahay ugu horeyn waxaan leenahay haddii cadamo iyo weyni la rabo miqyaaskeeda koowaad waa doorashada rabbi uu wax doorto ilaahay intuu khalqigu isagu abuuray oo dhan eego fardi ka mida inuu ka dhex doorto oo uu doorto inuu mu'ahal u yahay inuu u cuntamo in loo dhiibo risaalada bashariyada uu rabbi kula xidhiidhayo idan rusushu iyo ambiyadu waa safwat alkhalq waa hormoodka bini aadamka aadamahoo dhan ilaahay markuu eegay dadku ka doortay ee uu u doortay inay bashariyada hormood u noqdaan dadka lagu dayan karo inay noqdaan ama hogaamin kara أي الرسوشي صدرت بإله القرآن كوحو كلي الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي سجاؤك ماشى والرسالة دي صدقة يعد الرسول لماذا ودورنا إلهي وحلي الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس إن الله سميع بصير إلهي سجا كدورتي الرسول ملائكة الحدودة عيد وحي يسوي به جبريل بشر كدحدي سنة إلهي الرسول بك دورته أنت إلهي الرسول بدن قرآن كسوت ريبة وحلالي وكلا فضلنا على العالمين بإلهي أسماء الرسل أنت اللي استبرد جاي أي إلهي وحلي وكلا فضلنا على العالمين لما أنت وحنو كفضلية لي وحنو كقرية لي عالم كأنتي سكلمة إلهي كنت المامية ولذلك نبي محمد إلهي مركو سفيني وحكو سفيني محمد رسول الله تاسا أمان غفلا إن إلهي أبورتي خلقي قدن قرنيي
waxay galaan iyo waxay gudaanba garanayay uu ku tilmaamay inuu yahay Muhammad alayhi salaatu wasalaam alle ergeygiisii ama rasuulkiisii kii rabbi soo dirtay inuu yahay laqad manna Allah ilaahay quraanku wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nicmadii ilaahay uu ku manaystay dadka muuminiinta ah sida awgeed waxaan leenahay basharkii aadam uu dhalay rusushu waa hormoodkii ilaahay ka doortay ee loo doortay inay bashariyada ama bini aadamka hagto oo dulumaadka ama madowga intay ka hagto inay nuurka geyso haddaba waxa isweydiinta le wuxuu yahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam rususha xaguu kaga jira bini aadam oo dhan ilaahay ka doortay innaga muxuu inaga mudan yahay bashariyada inta wax aqoonta wax baadha iyo maraakis ilcilm xaguu ka jooga nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam risaashu ama rusushu doorashada ilaahay uu rusul doortay laba shay bay wada tilmaamaysaa dhanna waa tashriif iyo maamuus dhanna waa takliif dhan waa maamuus oo rabbaa maamuusay dhanna waa takliif oo culays baa la saaray ilaahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu inagu leeyahay ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي وحو أمان كقارسية وليه إلهي ملائكتي سوحي كصلي يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي سلي سوى أمان وثناء عند الملائكة المقربين با إلهي أمان النبي محمد وشيعه مدح بن آدم كو مدح كو جعلي إلهي وحو الماما يا أمان النبي محمد ربي جيبا شيعي ملائكتنا ويدعو عيسى حتى حتى إنكم مؤمنين تهم بإلهي لي يا أيها الذين آمنوا مركي ورك الله ينوش شيء نبي محمد مقام كلي عليه الصلاة والسلام مركي الله ينوش شيء أي إلهي وحين لي حتى إنكم هدا مؤمنين تهم صلوا عليه وسلموا تسليما نبي الله محمد حديث اللي قورنا ينوحوا المامية أنا سيد ولد آدم إنه يهي سيدك وضيق ويلك وحقرتك أقوياهنك آدم انتو لا يردن إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيح إمام أحمد وسائر ورنيه نبي عليه الصلاة والسلام هبينكي للدلمية الإسراء والمعراج وإلهي لي آيات كيغا واوين بانو صوتو صينا وإنت مكلك كحيي بيت المقدس لقيي بيت المقدس لقى قاضي السماوات العلى لقبت سيي ميلان بشر بقارين وليي إيادو الله ما موصيه أي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كلا قورن يوحط المامية مكة إلا إيا بيت المقدس وحو الراعي نبيه براق بهالله يداهضه وحيو فولان براق الله يداهضه البراق ayaa waxa la yiraahdaa waxa ku adkaatay nabigu sidii uu fuulayay dabeetana jibriil baa la hadlay wuxuu yiri ma yaxmiluka ala hada neefkan uu nabigu fuulay maxaa kugu xambaaray inaad saan yeesho fa wallahi ma rakibaka ahad qat akramu ala allah minhu jibriil baa dhaaranaya wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay nabi maxamed cid alla agtiisa kaga sharaf badan oo abid ku fuushay ma jirta buu tilmaamaya farfada araqa abu hadithku tilmaamaya براقدي ديدت بي هورتي اما شبطي محل شاهد كو حويا انه جبريل كو دارنيا عيد نبي محمد كفضل بدن وفوشينا نجري اما النبي عليه الصلاه والسلام لامانه وحق في القران الهي وحط المامي انه النبي عقلي الراي توسن لي ما ضل صاحبكم وما غوى ضلالك waxa la yiraahdaa bay yiraahdeen عدم الاهتداء الى طريق الموصل adoo garan waaye jidka ku gaarsiinaya qasdigaaga riwaayadana waxa la yiraahdaa fasaad الرأي aragti xumida ra'yi liidashada ilaahay wuxuu leeyahay ma dalla saahibukum wama gawa labada midna kuma sifoobo ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa aragiisu inuu khayr qabay ma zaaqa albasar wama taga ma ilanin daymadiisu baa la yidhi mana xadgudbin
waxa ilaahay ku tilmaamaya nabiga laabtiisa inuu ilaahay waasiciyay alam nashrah laka sadrak waxa ilaahay ku tilmaamaya qalbigiisu inaanu beenta aqoonin ma kadhaba alfuadu ma raa waxa ilaahay ku tilmaamaya magac iyo maamuus in rabbi siiyay warafacna laka dhikrak xuskaaga kor yeelay baa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ilaahay ku tilmaamaya aqoontiisu aqoon khata iyo sawaab aqbashay inaanay ahayn inay hayd aqoon absolute sax ah saadaradeed baa ilaahay ku tilmaamaya allamahu shadidul quwa malakul jibril inuu aqoontan u keenay dhaqankiisa ilaahay amaano wuxuu leeyahay wa innaka la ala khuluqin azim akhlaaqti u fiicnayd oo dhan baad leedahay sida ogeed nabigu alayhi salatu wasalaam waxa xadiis saxiix ku tilmaamaya in ilaahay subhanahu wa ta'ala khaliil uu ka dhigtay waxa soo dhamay waxa ay sheegayaan booska ama maqaamka ilaahay siiyay nabigiisa min bayn ar-rusul markaynu eegno anbiyada dhexdooda sidoo ku yahay quraanku wuxuu soo aroorinayaa anbiyadu baryooyin ay ilaahay baryayeen wuxuu kaloo la soo aroorinayaa quraanku baryadaasi nabigu isagoo aan wali baryin in la siiyay isaga مثلا نبي الله إبراهيم إلهي مبريه وحليه ولا تخزني يوم يبعثون إلى وهي هو جن ما لم تضدك الله صاري نبي محمدنا إلهي وحليه يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي خليل إبراهيم مركي دبك الغطور وحليه حسبي الله إلهي با يغفر لنا رب بريه ويدي سنيه إلهي نوح النبي يقول يا أيها النبي حسبك الله با إلهي كيري نبي الله إبراهيم إلهي مبريه يا وحلي إله كم مقع في عنك تقع وضدك دبا خير كم مقع حيان يقلق اجعل لي لسان الصدق في الآخرين إلهي النبي عيسى عليه الصلاة والسلام وحلي ورفعنا لك ذكرك نبي إبراهيم إلهي مبريه يا وحلي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إله وأنا جاي أنت عند ليبا إن الصنم عابدنا نقفقه إلهنا النبي يسوع كله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إلهي وحدونا إياه نبي عليه الصلاة والسلام يا أنت أهل البيت كيسين الرجس من الأوثان إنه ربي كفقه أيه قرآن وحكى ورمية نبي موسى وإلهي بريه أوله اشرح لي صدري أوله يسر لي أمري أوله أحلل عقدة من لساني أوله وعجلت إليك ربي لترضى ونبي موسى إلهي نبي الله محمد هل كبر يي موسى أو يريد اشرح لي صدري ألم نشرح لك صدرك با إلهي ميهنا ناديك الله بتاعت واسعين با هل كلها يسر لي أمري موسى إلهي وحلي ونيسرك لليسرى تفضل بانو ناديك كوف ضيدين الله هل كن نبي موسى لا يحل العقدة من لساني فإنما يسرناه باللسانك با إلهي نبي محمد كنت المام هل كن نبي موسى وليه وعجلت إليك ربي لترضى إلهي وحلي لعلك ترضى إذن نبي موسى هي النبي إبراهيم وأبو الأنبياء وأفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم أفضلهم وموسى أي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحي نوت المامين وكفض بديه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وياه أنبياء إلهي سبحانه وتعالى وكلا تفضيلي ولذلك بو إمام البوصري قبياقي البوصري وأنا قبيايا قبيا ذو قرح بدن قولي يفردها الله ينهضه قبيا يقول ما يلفظ حنا ولا يرى ترارين وكجرته لكن أنتي سبضني أدب وقرح بدنت أو النبي عليه الصلاة والسلام قو أمانية ما له النبي أمانة في عقد المامية وحكم ده فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم بلي فمبلغ العلم فيه أنه بشر نبي قولي عليه الصلاة والسلام وابن آدم ورطة لكن بن آدم ورطة مرك الله يسقط رواك وخير بدل حق الرب إنما ده قاعد ما يوا بشر بشكو كمدي لكن بني آدم مرك الله يسقط رئيسك أو فضل وضموت المامية إذن أيها الأحبة
آخرنا وحلا تلمامي اللواء الحمد ينسب السدو أنبياء مركي نفسي تلاحظه الشفاعة الله طلبه النبي ولي هذا مربى وحسن نقضينا عد كلك راعة إنه النبي عليه الصلاة والسلام لواء الحمد يسوي قاضي دونه الرماها صعد موحي تلمام يعني فضل النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك واحد العلماء الحسن بن الفضل باو حليه لبا اسمه أسماء الله يعد كلام القرآن كويس مرة عن النبي محمد موياني إلهي نفتي سوى حكوت المام إن الله بالناس لرؤوف رحيم نبي الله محمد إلهي وحكوت المام بالمؤمنين رؤوف رحيم إلهي وبالناس ضد أي رؤوف رحيم ويه لكن النبي قال وحل قصة عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم نبي الله محمد وحا أخري قرآنك مركو أخري أيو أركي أنبيادي وإلهي بريسة نبي إبراهيم وله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني يا نبي عيسى وله إن تعذبهم فإنهم عبادك مركز النبي قلنا إلهي بريسة وله اللهم أمتي سقوله هي جبريل با إلهي صادرك حديث صحيح مسلم هو ياله وحلا النبي محمد وحد سوي تسبحك أوهنية وشهد إلهي وحكوي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ومدار أرن كذا وكرر لك لنا نبي الله قتل مامي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هذا بقى أيها الأحبة وحين آخرنا وقرآن يا حديث كور رمي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أم بني آدم كون ماضي نبي الله محمد وحين الله النحي مجالات كبني آدم كاللغو أمانة دمان تود أيو كلي يقفكو أها هداد نحريس تلاحظه هداد قيس النمى تلاحظه هداد صبر تلاحظه هداد دلقاد يحلم تلاحظه هداد ديق سخاء وحبحين تلاحظه هداد وفاء بالعهود بلن لأوفية تلاحظه هداد عفو تلاحظه نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أنت وحي دعاية دودة المامية إنه إرهابي هاي في تاريخنا وحالله يا نبي محمد أنا ولقي نفتي سوار قوصنين وأيك أرقوصنين كوي اسكدي يين الدلان حديث النبي وحي تلماميسا مسيرة ديس وحي تلماميسا إن لا اسكدي يين تاسوشر إن لدلو منافقين باسكدي يين تبوك وطيروا الله وصروا مريين كالردان وهموا بما لم ينالوا إلهي قرآن قتل المامية وعفية وحبوا مشيغانين دوريتهم بيهاي واحد أعرابي بايسقوه هردينتو سيفتي سيل لبحي سلدو التاقي حديثك بخاري ولم حاضر مالينسا أو يري ربا يكاردعين هاي سيفتي كاردعضي وعفية نبي محمد مدحوينا ما انت بم الله قبصدو مركلا سيدة دي لينتو كبد بعد وراني يسكي سيدا يواكي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنت يسلد دول تاجين ويسلهدين دل أيوم ورا خيام عظمى الدولة بوحية لي عندنا وحرسي داي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كوي وطشغي دار الندوة الربين اللاريان أيومكم ما كسروا قالي اذهبوا فانتم الطلقاء سكت قوايد عافية والله باطني يدور سندود بين الدجالمية كو عينك كلية وكوبي يلا باطن سندود بين الدجال كلية كوبي يلا باطن سندود سناديد الدجال كلية ترتيبوا عافية إذا إرهاب داية مسألة العفو أخلاقيات كعيد كل برة تمشي دريد التاريخ والله يا مجرته وحلا إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي سيدو كنت المامي أخلاق سجود مي بشر وحلو أمانة هدي جرته قف بني آدم والله أمانه بني آدم كوحلو أمانة وحيابك اللي قديسة قف بوحبوك وعام بها تاريخ ده قف بعد مغلس على قشة كين أيوه قال يا مسلم إيه ما أيوه وحلا قشة كين يصف بني آدم نمو وعام مثلا حاتم الطائي ونعرف هذا الجاهلية دي هرنا ولا أنا سوق قاعدين بإسلام عدي ابن إنا كيسا سوق قاعدين لكن والله يوم سوق قاعدين حاتم الطائي تاريخ تعرف هذا ولا بوحي كو أمان سينو سخي أها قف قعم فران وها بني آدم كبرت بحشرة جيسي نما لغو أمانه
badh baa jira qiyaado lagu ammaano badh baa jira dulqaad lagu ammaano bulshada ama insaanku waxa uu wanaagga u yaqaano qof ay ku wada ururtay ma jiro aan maxamed ahayn baan leenahay calayhi salaatu wasalaam intan taariikhdan dambe aynu hayno sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyawma alaakhir idan ayuha alaxiba nabiyullaahi maxamed hadday reer laga dhashatay reer la yaqaan buu ka dhashay hadday muuqaal iyo qurux tahay qurux buu u dhashay hadday caqli iyo faham tahay caqlu u dhashay hadday odhaah iyo aftahamo tahay odhaah iyo aftahamu lahaa bale waxyaabihii rabbi uu manada gaarka u siiyaa nebiyada kale la siinin jawaamiculkelim baa ka mid ah word kooban oo macno ballaadhan le in rabbi siiyey subxaana wa tacaala hadday diin cilmi xilmi dulqaad sabir zuhdi shukri cadaalad tawaaduc cifa waxbixin xayaa muru'a sakiina waqaar hayba raxma waxa bini aadam sifo lagu sheego ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wainaka la calaa khuluqin cadiim sidaa daraaddeed bay taarikhyahanadu waxay idhahdaan rajul waaxid fii muqaabil jamiici arijaal bay idhahdaan waa nin keliya oo la hordhigayo bini aadamka inta ka soo hadhay oo dhan haddii uu jiro bini aadam la ammaano oo taariikhda bini aadamku ay wax ka qortay horta nebi maxamed wuxuu taariikhda bini aadamkii kale kaga gedisay calayhi salaatu wasalaam waa qofka qura ee taariikhdiisa la hayo wax kasta oo noloshiisa ku saabsan ilaa xad meeluhuu ku kaajay la garanayo dawakaadii ilaa xad kabtuu xidhay noocay ahayd iyo indhal inay lahayd iyo qaabkay u samaysnayd kutub shabaa'il baa qoran kabaa nebi maxamed inay cidhib lahayd inay meel farta la geliya kutub shabaa'il baa ka warramaa waxaa laga warramaa dharkuu qaadan jiray iyo midabaday lahaayeen waxaa laga warramaa cunadu cuni jiray iyo siday ahayd waxaa laga warramaa gurigiisa iyo wuxuu ka qaban jiray waxaa laga warramaa musqusha markuu galo gacantuu isticmaali jiray marka uu iska biinayo istijoolaya biyaa isticmaalayo ma bidix buu isticmaali jiray ma midig buu isticmaali jiray waxaa laga warramaa wuxuu dagaal galay waxaa laga warramaa cidduu dumar la xidhiidhay uu guursaday waxaa laga warramaa meel kastoo intuu nebi noqday taariikhdiisa u istaagay qof bini aadam oo taariikhdiisa oo dhammi banka ay taallaa ma jiro aan isaga ahayn maca daalik aan lahayn meel dhibic madoowa taariikh dhan waan waxba ka maqanayn bini aadamka waxaa lagu yaqaanaa qofka wax ku caanbaxe ku fiicani macnaheedu maaha everything inuu yahay halyeyga la yaqaano inta badan taariikhda laga sheegaa waxay ku saabsantahay uun mas'ala qofkani ku caanbaxay baa in badan taariikhdiisa kaloo dhan in yaroo muujisaa la tilmaamaa ama moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisa waxaa la tilmaamaya bikulli tafaasiiliha kutubu siira iyo dawaawiin alxadiid wixii uu qadiyad xukumay wuxuu cibaadaystay wuxuu meel istaagay dee waa diin lagu dhaqmayo saa daraaddeed baan wax ka maqan oo noloshii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka mid ahi aanay jirin haddaba su-aal baynu isweydiinaynaa cadamada alcadama greatness weyni bini aadamka weynidiisa maxaa lagu qiimeeyaa aan soo qaato afar aqoon-yahan oo wax qoray midba si uu wax u qiimeeyey waxay idhahdeen cadamada weynida qofka bini aadamka ah qaar waxay idhahdeen saddex qodob baa lagu qiimeeyaa imaa waxaa lagu qiimeeyaa bay leeyihin alakhlaaq walmazaaya wasifaat shaksiya in qofka lagu qiimeeyo dhaqankiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo qaabku u dhaqmayay insaaninimadiisa ama bay yidhaahdeen bini aadamka waxaa lagu qiimeeyaa almazaaya walacmaal ama si kale haddaynu idhahnay alinjaasaat wax soo saarkiisa waxqabadkiisa muxuu bini aadamnimada kusoo kordhiyey ama waxaa lagu qiimeeyaa bay idhahdeen qofka bini aadamka ah alaafaar raadkuu ka tegay intee buu raad ku leeyahay bini aadamnimada ima inaynu idhaahno sifaadkiisa daatiga ah ee bini aadamnimo intuu qof bini aadam ah oo naxariis badan oo sabir badan oo dulqaad badan oo geesinimo leh oo kan lo sifaadkiisa
insaaninimo inaynu ku qiimayno iyo inaynu ku qiimayno waxqabadkiisii wax soo saarkiisii qof injaasaad leh wax soo saar leh ama inaynu ku qiimayno raadku bini aadamka kaga tegay intee in leegoo raad uu ku sameeyey taariikhda bini aadamka waxay yidhahdaan saddexda kaad ku qiimaysaba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam bashariyada number one buu yihi haddaad dhaqan iyo akhlaaq wax ku qiimaynaysid haddaad acmaal dowladnimadii iyo wixii uu dhisay iyo diintii iyo camalkii iyo shaqadu qabtay haddaad ku qiimaynayso iyo haddaad ku qiimaynayso raadka uu taariikhda bini aadam kaga tegay saddexda kaad ku qiimaysaba bay leeyihin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam number one buu yihi si kale waxay yidhahdeen cudamada marka la qiimeynayo waxa suurtagala bay yidhahdeen qofku inuu tolkii ama dadkii ama dhulkii inuu qiimo ku leeyahay laakiin dadka kale uu dhibay maalan abtaasha marka la qiimeynayo geesiyada dagaalka dee qolana waa la jebiyey qolana waxbuu jebisay qiimaha wuxuu ku leeyahay oo laleeyahay ninkani waa geesiyo cid buu jebiyey waxa weeyaan dadka qayb u waxtara ama qaybta kale iyaga wuu dhiba marka la qiimeynayo xuduud baa lagu qiimeeyaa gobol ama degmo ama wadan ayuu ninka kale wixii uu bedelay qiimo ka leeyahay mise waa universal dunidu qiimo ka leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin bashariyadoo dhan buu waxtaray walidalik ayaa waxay tilmaamayaan taariikhyahanadu markay ka warramayaan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam shakhsiyaddii nebi maxamed hadday tahay afkaartu ka tegay iyo aragtiyuhu dunida kaga tegay hadday tahay isbeddelkii nololeed uu ku sameeyey dunida intii uu gaadhay hadday tahay dhaqankii iyo basharka uu la dhaqmay siduu ula dhaqmay intaba bay leeyihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yahay ashakhsiya lula aan bacdi nuquul tilmaamo dadku cid waliba halyeeyadeeda gaarkaa bay ammaano tahay waana bini aadamka wax lagu yaqaano cid waliba geesiyadoodii ama dadkoodii qadiisiintaha ama nebiyadoodii badhe ama liidaradoodii hogaamiyaashoodii la yaqaanay bay ammaan tahay si aan u garanno qiimaha uu bashariyada ku dhexleeya aan ka tago inta muslimka iyo waxay qoreen waana eegna bal inta kale munsifiinta ah inta wax la garan karo wax ku qiimaysay iyo say nebi maxamed u qiimeeyeen مثلا odaygii la odhan jiray Will Durant waa William Durant waa qoraa iyo filosof maraykana iyo taariikhyahan waliba mucamiriintana ka mid ahaa dhowr iyo 90 sannadood baan filayaa 96 meelahaasuu noolaa 19 buu dhintay qarnigii ka horreeyayna wuu dhashay lagu tilmaamo dadyowgii waxyaabaha waaweyn ama qoraalada waaweyn ka tegay oo labadan kitaaba uu leeyahay mid afartaneeyu ku dhadhowiyay majalladoodba Story of Civilization iyo Story of Philosophy laba buugo mujalladaada waaweyn buu leeyahay kitaabkiisaasi la yidhaahdo Story of Civilization ayuu wuxuu leeyahay إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجلب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ حلي هدي إنه وينده greatness عظمة هدي إنه كل قيمة النبوي qofku wixii uu raad bini aadamtinimada kaga dhex tagay محمد عليه الصلاة والسلام waxaan oran karnaa buu leeyahay waa acdam cudamaa'i taariikhda bini aadamka qof soo mara waa qofkii u weynaa baan oran karnaa buu yidhi marka aynu ku qiimayno dhulkii uu ka soo baxay ee saxaaraha engeganaha iyo dadkii hamajiga ahaa ee ku noolaa qaabka ay ahaayeen
iyo qaabkuu u bedelay ma jira buu leeyahay taariikhda bini aadamka dad noocaasa qof intuu u yimi isbeddel intaa le ku sameeyey buu tilmaamaya adiibkan la yidhaahdo Tolstoy ama Lev Tolstoy waa adiib ay ku sheegaan inuu qoray min amtaci maa kutiba fi turath alinsaniya qaatiba can nafsi albashariya bay yidhahdaan insaanka adabka ka warrama dad yawa ugu fiican dunida wax ku qoray buu ka mid yahay bay yidhahdaan wuxuu isna leeyahay yakfi muxammadan fakhra annahu khallasa umma daliila damawiya min makhalib shayaطin alcaadaat aldamiima وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم وإن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة حليم نبي محمد سيقول نبي كمت المامي محمد بولي عليه الصلاة والسلام وحاوف الأنفار إنه أمد الليدته وآد الليدتي عاداتك حنحن انتو كساري wadada horumarka iyo kor socodka uu tusiyay buu leeyahay sharcigu Muhammad ka tagayna waxaan rumaysnay buu leeyahay inuu dunidan maamuli doono waayo buu leeyahay aqliga iyo xikmadu la socda waa shariicada dad muslimiinta maanta ka mid leeyihiin ee casriga lama socon karto ayuu ninka gaal wuxuu leeyahay aqliga iyo xikmada shariicadiisu la socotay dunida ay maamuli doontaa odayga la oran jiray Bernard Shaw waa oday Ingiriis ah oo riwaayaadka dadka qora ah wuxuu loo diray bay yidhaahdaan si taariikhyannada qaar tilmaamaan inuu bal Nabi Maxamed majaajilooyin iyo wax ka sameeyo yacni waxyaabo ceebayntiisa dabeetana wuxuu u dhaqaaqay inuu taariikhdii Nabi Maxamed akhriyo taariikhdii Nabi Maxamed markuu akhriyayna fikradiisii wuu bedelay wixii uu socday waxaan ahayn buu sameeyey buug buu qoray bay yidhahdaan taariikhyannada qaar baa waxay leeyihiin buugga dowladda Ingiriis baa gurtay qaar sheega uu kaga warramaya Nabi Maxamed iyo dhaqankiisii dabeetana halkii la eegayay inuu caayo isagu wuxuu leeyahay Muhammad waa munqidh albashariya buu yidhi in alcaalam axwaj maa yakunu ilaa rajulin fi tafkiiri Muhammad buu leeyahay dunidii buu leeyahay waxay ugu baahi badan tahay maanta inay hesho nin Nabi Maxamed u dhigma ama afkaartiisa iyo kala sita buu leeyahay nabigaasi buu yidhi wadaca diinahu daa'iman mawdic alixtiraami waalijlaal diintiisa wuxuu dhigay buu leeyahay meel bini aadamku uu ixtiraamo oo weyneeyo fainahu aqwa diinin calaa hadmi jamiici almadaniyaat waa diinta ugu weyn ama ugu xoog badan ee liqi karta xadaaraadka bini aadamku uu leeyahay oo dhan buu leeyahay saa awgeed waxaan u arkaa buu yidhi wainii araa kathiiran min bani qawmi qad dakhaluu hada addiina calaa bayina wasayajidu hada addiini majaalahu lfasix fi lqaara waxaan u arkaa buu leeyahay tolkay reerulku sheegaya in badan oo ka mid inay diintan aqbali doonaan oo qaadan doonaan haddii ay si fiican u akhriyaan oo arkaan Bernard Shaw weeraad u tiro badan baa laga soo naqliyaa ilaa xag uu leeyahay waxay naga dhaadhiciyeen inuu cadowga masiixiyada ahaa laakiin waxaan u arkayaa buu leeyahay inaanu cadow masiixiya ahayna munqidh albashariya inuu ahaa bini aadamka kii badbaadiyey inuu ahaa maantana buu leeyahay mushkilaadka caalamka ka jira haddii gacantiisa la gelin lahaa nabad iyo badhaadhuu kusoo dabaali lahaa buu leeyahay Muxamed calayhi salaatu wasalaam waxay isweydiinta leh maxaa keenay cid kastoo daraasaysa taariikhdiisu inay sidan u arkaan Benjamin Bosworth Smith inta badan Benjamin Smith bay u qoraan waa nin protestant oo bishop ah oo Maraykan ah Muhammad al-Muhammadanism bug la yidhaahdo qoray waxa uu tilmaamayaa laqad kaana Muhammadun qaa'idan siyaasiyan wa za'iman diiniyan fi aanin waahid لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها إليه.                                                                                                              وبيشوب مريكان أو بروتستانت
bishopkaasi taariikhdii uu daraasaynayay nebi maxamed markuu daraasayey buug buu qoray maaha nin inala diina ama diin ahaan maxamed u ammaanaya laakiin taariikhdiisa markuu daraasaeyey wuxuu leeyahay maxamed wuxuu ahaa buu leeyahay hogaamiye siyaasiya iyo hogaamiye diineed buu mar qura isku wada ahaa buu leeyahay haddana buu leeyahay isla weynida wadaadada diintu ay leeyihiin wadaadadooda reer galbeed buu ka warramaya dabcan baabawaadkooda cajarafada isla weynida ay wadaadada diineed leeyihiin iyo ciidamada tiro badan ee boqortooyooyinka ay wataan labadaana midna ma lahayn buu leeyahay maxamed buu yidhi ciidan ma haysan oo askar gaara oo ilaalisa ma wadanin oo guryo boqortooyo uma dhisnayn oo mushahar joogta ana ma qaadan jirin buu yidhi intaa midnaba ma haysan buu leeyahay haddii uuna aan nidhaahna buu yidhi qof bini aadama awoodda ilaahay in wax ku xukumay isagoo aan haysanin wixii miiniskii bini aadamku wax ku xukumi jiray haddaan nidhaahna buu yidhi waa maxamed un qofka taariikhda sidaa ku haynaa buu leeyahay qof dowlad iyo ummad iyo xadaarad iyo hoggaamiyey oo haddana gacantiisa haddii la eega buu leeyahay waxa bini aadam isagu qiimayntu qiimaynaya lagu hoggaamiya aanay gacantiisa ku jirin waa maxamed buu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam matalan haddaanan kala soo tilmaamo michael hart waa nin maraykan ah naase qoladii u shaqayn jirtay ah professor ah kaatib ah takhasusaad badan sita waa astrophysics uu ku takhasusay computer science takhasusay buu leeyahay takhasus 5-6 takhasus bay u sheegaan oo kala gedisan inuu watay waa asal ahaan waa yahuudi asal ahaan dhalashadiisu waa nin yahuudiya wuxuu qoray buug la yidhaahdo The 100 buugga wuxuu kaga warramaya uu ranking u samaynaya tartiib wuxuu u samaynaya boqolkii qof ee taariikhda bini aadamka ugu influence ugu taafiir raadaynta badnaa boqolkii qof ee bini aadamka taariikhdiisa u arko inay ugu raadayn badan yihiin waa buug aada u caanbaxay dabcadkiisii koowaad waxaa la yidhaahdaa ilaa 500,000 ayaa la daabacay bay yidhaahdaan oo 15 luqana uu ku daabacay ninkaasi oo weliba isagu markuu isa sifaynayo wuxuu dhahaa Jeffersonian liberal baan ahay liberalismkii Jefferson loo nisbeynayay madaxweynihii hore Maraykanka kuwaasaan haystaa buu leeyahay laakiin qolada kasoo horjeeda waxay yidhaahdaan waa conservative racial separatist bay yidhahdaan waa cunsuri bay iyagu ku tilmaamaa bal hadda cunsuriga haddaynu u qaadno ay qolada kale ku sheegayso muxuu nebi maxamed ka sheegay calayhi salaatu wasalaam ninka conservative-ka ah siduu u arkay inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay anigu mawaasiin baan isticmaalayaa buu leeyahay criteria dhigta criteria 3 ah ayuu yidhi baan ku qiimeynayaa qofkan sida aan ugu samaynayo tartiibka kan criteria-da waxa ugu horeeya buu yidhi qof jira waa inuu qofku noqdaa taariikhda qaar baa jira buu yidhi dad laga warramayo oo inay jireen iyo inaanay jirin ba la isku hayo laakiin caan baxay kan labaad buu yidhi waa inuu asar weyn bini aadamka kaga tegay xataa anigu odhan maayo buu yidhi asarku inuu fiican yaho qura ku qadari maayo raadku ka tegay ama raad xun bini aadamka ha kaga tago ama raadsan ee way raadayntu bini aadamka ku yeeshay tiro badantay saa daraaddeed boqolkiisa matalan Hitler baa ka mid ah boqolka qof uu tilmaamay Hitler baa ka mid ah sababtaan ugu daraya waxa weeyaan buu leeyahay raad xooggan buu bini aadamnimada kaga tegay haba xumaada raadku ka tegay qodobka saddexaad oo ku dooranaya waxa weeyaan raadayntiisu waa inay noqotaa buu leeyahay raadayn caalami ah ee nin gobol qura wax ka bedelay waa inaanu noqonin ee shakhsiyad international caalami ah waa inuu noqdaa saddexdaa shay markaan wax ku qiimeeyay buu leeyahay ka koowaad waa inuu qof jira noqdo dad badan buu tirinayaa uu leeyahay waan uga tegay iyadoo aan taariikhdooda la hubin inay jiraan inuu qof raad leeyahay iyo inuu qof si caalamiya wax u raadeeye yahay intaa markaan isku dara buu leeyahay number 1 waxa waa Muhammad calayhi salaatu wasalaam taariikhda bini aadamka buu leeyahay qofka koowaad ugu raadaynta badan
anigu criteriadan doortay number 1 ka ahi waa nin yahuudiya oo conservative ah waan muslim ahayn number 1 waxa yahay buu leeyahay Muhammad alayhi salaatu wasalaam isaga aragtidiisa number 2 waa Newton number 3 baa Ciise ah Ciise way weydiiyeen waxay dhahdeen muslimka kristanka ka badan maxaad Ciise uga dhigtay number 2 criteriadadan hadday tahay raadaynta Ciise uu ka tagay miyaan ka badnayn tiraahan marka la eego inuu Ciise ka badan yahay inta haysata Muhammad inta raacsisan oo ka badan yahay way jirtaa buu leeyahay laakiin diinta hadda haysataana Ciise buu leeyahay dhammaanteed raadaynteeda Ciise kaliya ma leh ee nus boolas baa la buu leeyahay hadday tahay kitaabka qoritaankiisa in badan oo risaaladan ka mid ah bible ka mid ah boolas baa qoray qaybta caqiidadana inta ugu badan la boolas baa la buu leeyahay saadaradeed munaasafa bayna rajulayn bayadu noqonaysaa buu leeyahay laba nin baa loo qaybinayaa marka kristiyaanka ka warramaya marka boolasna waa ka mid isagu rag uu tirinayo Ciisena waa ka mid waxaan Ciise wanka u sii waayay buu leeyahay hadda raadaynta saaw eegtaan Christianity aanan u arkay inuu yahay nin qudhu inuu raadayntan leeyahay ولذلك وحط المام يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنه يهي قفك كواد موسى أو ربيسية هي نمبر 4 وكذلك هديبة محمد وحمد دورتي بيقولي إسلام لماذا أنا theoretical كذا سوى دسوكا شيء يسجى ولا دشيء fulinteedana isaga wada fuliyay Ciise buu leeyahay isaga wax badan fulin ba koroska uu taagmay marka labada qaybood aan wax ku qiimeynaya buu leeyahay labadaba Muhammad alayhi salaatu wasalaam isaga ka horeeya waxa leenahay ma ahanin ama la laalushay ama naxariis gaara muslimnimo u hayay ama xataa haddaynu dhaano financially kasta markaaga miyad provideraysa cidda tiladii buugaaga ay buugiisa Ingiriisi ku qoray ugu matalagelin small ahay muslimiinta wax badan ka haysan soo suuq baad ka helaysaa yani wax loo yiraahdo islaamku uu ahbay oo ninkani wataa ma jiro everything hadduu bulshadu buuga u qorayto waa bulsho western cidda wax ka iibsanaysa waa kuwaasi haddana wuxuu ku tilmaamayaa Muhammad alayhi salaatu wasalaam buu leeyahay ayaa number 1 مثلا جريدة التايم وإذا دام مريكا كانوا فليا أي ضد بيصور ورسيسو جريدة ضد كلا نوعه أسكر محل إذا دا بروفيسورس مال قبلنا ضد كلا نوعه تبتدي واحد ويديني من هم قادة التاريخ العظماء هو الهستوريوس great leaders يا أحبي ويديني تاريخ البني آدم كا yaad u aragtaan inay u mudnaayeen su'aasha dadka badan ee kala nooca la soo hordhigay in allaaliya intii la weydiiyay diidaad wuxuu odhanayaa mid quri ma awoodin inuu ignore gareeyo buu leeyahay Muhammad alayhi salaatu wasalaam mid kastaaba markuu tilmaamayay buu leeyahay dadkii wax la weydiiyay oo dhami bini aadamtinimada yaa great leaders ahaa yaa ahaa قادة عظماء يا دد ووينو بني آدم لماذا هجامية واحتراها قف والله كم دي بوحة المام يقولي نبي محمد مكم دها ويليام ماكنيل وبروفيسور تاريخات أيام حلية هي هدين الزعامة ده ما وين ده قوقي ما ينبغي لمدى التأثير أنت وبني آدم كراديي دي واحد شيء كرنابولي عيسى المسيح يا بوذا يا محمد يا كونفوشيوس الأنبياء العظماء بورنيا نبيا الديمه هو وين ودمي راديت إليهم بيت المام نابولي مدى يساقوا فريق عسكرية جيمس جافن أي كتل المامين بالليلي يا دو أركتا تاريخ ضدك يقوى وينا عسكر قدين تبدن حق عسكري لماذا هي ضدك أيوكي إليه يا دو أركتا تاريخ ده يقول رادين بدنا توحي لمحمد يا عيسى يا ليلا يا موتستن أيانو أركيين يهين ضدك يقول رادين تبدنا وحقانية بروفيسور psychology أو يهودية
oo Julius Masterman la yiraahdo ayaa kamid ah nimankii wax la weydiiyay isagu wuxuu oranayaa criteria weyn ay jirtaa inuu qaadada ku qiyaasno leaderka ama qofka aynu leenahay waa qaa'id maxaynu ku qiimeynaynaa aniga waxay ugu muuqataa buu leeyahay saddex shay inaan ku qiimeeyo waan leeyahay qaa'idka waa in saddexdaa shay laga helaa qaa'idku buu yidhi waa inuu yeeshaa التكوين السليم للقيادة oo waa maxay qof aan dadka dacfigooda iyo muqaffaliintun ka haysanayna inaanu ahayn waa inuu noqdaa qof wax fiican bashariyada u wado mabda'a si lagu raacayo waa marka labaad buu yidhi qaa'idka waxaan ku qiimeynaynaa bulshada uu hogaamiyey inta uu amni iyo tumaniino u soo kordhiyey intuu horumar iyo deganaan iyo caqli ku soo kordhiyey ee kuma qiimeynayna buu leeyahay anaanimo iyo tamac iyo cunsuriyad intuu sameeyey qodobka saddexaad buu leeyahay aan u arkaa waxa weeyaan buu leeyahay criteria inoo ahay qaa'idku intee buu shacabkiisa ka dhigay dad homogeneous dad muctaqad qura ama wax qura wada aaminsan bulshooyinka marka la qiimeynayo sida hogaamintooda waxay u kala fududay siduu siyaasigu ugu guuleystay inuu dadkan wax wadaajiyo sida uu uga dhigi karo homogeneous group inay noqdaan saddexdaa markaan wax ku qiimeeya buu leeyahay Masterman taariikhda dadkii aan u arkayo inay saddexdaa ku guuleysteen waxaa ka mid ah buu leeyahay Gandhi waxaa ka mid ah Confucius waxaa ka mid rag buu soo tirinaya laakiin buu yidhi lacalla acdam qaa'id kaana calaa marri alcusuur huwa Muhammad buu leeyahay kuwan oo dhami waa qaada buu yidhi laakiin haddaan eego yaa ugu weyn wixii qaada taariikhiya anigu garanayo markaan kriteeriyada saddexda ah ku qiimeeyo cidda aan is odhan kara buu yidhi saddexdaba way kulansatay waa Muhammad qofka ku xigana waxaan odhan karaa buu yidhi waa Nabi Muuse isagu waa Yahuudi marka Muuse uma diidanin inuu ku xigi karo laakiin isagu aragtidiisa wuxuu leeyahay cidda koowaad aan siin karo waa Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam cidda aan ku labayn karo saddexda kriteeriya baan odhan karo way wadataana waa nabiyullaahi Muhammad calayhi salaatu wasalaam waxay isweydiinta le marka ilaahay baa qur-aanka le warafacnaa laka dikrak dadka bini aadamka caqliga isticmaalay ama aqoon isticmaalay ama wax lagu qiimeeyo isticmaalay nabiyullaahi Muhammad saasay u qiimeeyeen filosof India oo la yidhaahdo Ramakrishna Rao ayaa wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo Muhammadun Rasuulullah marka uu kitaabkiisaasi Nabi Muhammad buu rabaa taariikhdiisa inuu ka warramo laakiin sida Masterman kan ay sheegayno kale ayuu isna criteria qoraya criteria-da waxaan ka soo qaadanayaa buu yidhi Hitler baan criteria-da ka qaadanayaa buu yidhi kitaabkiisa la oran jiray maxay Kifaaxi Hitler book buu leeyahay la yidhaahdo Kifaaxi buugga Hitler maxaa ku qoran Hitler wuxuu leeyahay inta badan bini aadamka waa naadir buu odhanayaa waa dhif iyo naadir in la arko rajulu nadariyaat oo qaa'id cadiima in la arka buu leeyahay filosof hogaamiya in la arka buu leeyahay dunida waa naadir dadka inta badan caqliga isticmaaleen nadariyaadka ka warrama buu leeyahay inta badan leaders maaha dad hogaaminta ku fiican maaha buu leeyahay kuwa waxa hogaaminta inta badan uga dhow buu leeyahay kuwa ducaada ah dadkan mabaadi'da faafiya ee daaciyiinta ah uga dhow qiyaadada buu leeyahay kuwa filosofriska ah haddaba buu leeyahay haddii la rabo Hitler cidda ay ku kulanta buu yidhi awoodda inuu nadariya dejiyo iyo inuu wax maamulo iyo inuu qaa'id leader noqdo waa saddex shay wadci nadariyaat والتنظيم والقيادة saddexdaa shay qofka wada hela buu leeyahay waa naadir in la helo laakiin cadamada markaasay jirtaa buu leeyahay Hitler qof weyn waxa la odhan karaa wuxuu yahay qof leadership leh leadershipnimadu waa inaad dadku waxay arkayaan wax ka durugsan arkaysid hogaamin inaad leedahay management leh wax maamuli kara oo nidaamkiisa qof ka adag managerial post noqon kara ثالثا نظريات له فكرة سيدة ويسووا له نظريات كانوا ربعين وحكومة موليه صدق داس قفك يسقط كتابه ليه وحنا ركرنا بولي
qof hogaamiye weyna Hitler buu kriteeriyada ka soo qaatay philosopherkan hindiga ee Raw la yiraahdo dabeetana wuxuu leeyahay في شخص رسول الله في شخص رسول الإسلام بودي أيها وحنو أرك يا بودي أندر ظاهرة على وجه الأرض متمثلة في إنسان من لحم ودم وعجب بدن له وقف بنا آدم وديك يهلب كسر ميسان وصدق راسك كل ما أنا محمد بنجرنا يا بودي قف بنا آدم وصدق راسك كل ما وأنا dhiigi yala uu leeyahay laxam leh waa kaas baa ku tilmaamaya wuxuu leeyahay maxamed haddaan rabo inaan ka warramo taariikhdiisii oo dhan ma qori karo waayo buu yidhi waxaa jira maxamedka nebiga ah waxaa kaloo jira buu yidhi maxamedka dagaalyahanka ah waxaa kaloo jira buu yidhi maxamedka rajulul acmaalka ah ninka dhaqaala sameeya waxaa jira buu yidhi maxamedka rajul siyaasiga ah waxaa jira buu yidhi maxamedkii khatiibka ah aftahanka ah محمد كي مصلح اجتماعي لها واحد شربوا لمحمد ملاذ الايتام اقوامها هي ضدك باهن قفكي وروريجري اما حامل عبيد ضدك لا ادون صدق قفكي حريه واحد شربوا لمحمد كا محرر النساء هوان كان نكي حريه واحد شربوا لمحمد كا القاضي محمد كي قاضيها وحاس ادوار قف بني ادم ومثلك ربولي نقرا ولا مثلي بانو هينا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وفيلسوف هندية وأن مسلم هاي لكن وحلا هدان قيمة يقف على ركر مر قادوها ومر سياسي بوها ومر خطيب افتهم بوها ومر نبع مشتروها ومر مصلح اجتماعي بوها ومر جيسي تقالموها ومر نبي الدين وضبوها نن هدان كل شيء كرموا لي وها محمد عليه الصلاة والسلام رسولك مسلم توماس كارلين وفيلسوف إنجليزي ولمن أنت بعد حبها والله إذا حاجة بعد أمر الله هدنا وحلية هي قرآن وسمية محاضرات لكتر سوتشيدية أو كجو الرمية أبطاش جيسية العابده يعني جيسية الله خضوع العابدي marka uu geesiyadaasi ka tilmaamayo ayuu waxa uu tilmaamayaa wax aad u tiro badan oo uu leeyahay مثلا qaybuu qaybinaya qaybaha uu qaybiyay oo dhan inta kale boos kasta uu tilmaamo laba nin buu wada siinaya laba boos oo quduu qof qura siiyay booska koowaad wuxuu odhanayaa بطلك إله عند إله نمل له عابدوا أصنامت ابن آدم كسمايستي أودين بوشيريا أودين كوا صنم صندر له وإسكندنافيان كو كي عابد شري الدين تورتي إسكندنافيان كوا تنادن لا يرادا صنم كودا وين إلا هذا وصور رودا يدكتان على المتاحف تودا مركا وصنم يرو على البوران وصندر له كاسا أودين يرادا وإله هذي معبود كا إسكندنافيان كاس markuu ilaahnimada ka warramaya la caabuday ayuu ka soo qaadanaya wuxuu leeyahay haddaynu batal nebiya sheegno geesi nebiyada haddaan taariikhdooda baadhadu leeyahay geesi ka soo saaro geesiga nebiyaduna waa maxamed buu odhanaya calayhi salaatu wasalaam geesiga nebiyadu waa maxamed dabeetana sifaad badan haddaan waqtigu saamaxo sifaadku sheegay waxbaan ka tilmaami doonaa waxa kale oo dhan markuu tilmaamaya markaa waxa kaloo dhan boos kasta uu tilmaamo laba nin buu wada siinaya laba qaarna saddex marka boosaska qura uu laba qof midba qof siiyay waa ka asnaamta ee koowaad ee odhina iyo ka ambiyada markuu ka warramay maxamed oo quru tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa ka mid ah مثلا ragga wax ka tilmaamay nabiyullaahi maxamed mustashriq macruuf ka Zuwaymer la yiraahdo oo dadyowgii u khitaday waliba ka mid ah caalamul islaami sidii loo gumaysan lahaa ayaa wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo asharq wa caadaat bariga iyo dhaqamadooda kaljaradooda marka uu tilmaamayo wuxuu odhanayaa inna muhammadan kana wala shakka من أعظم القواد المسلمين الدينيين ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا
وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات. وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. محمد بولي وقيسيدي مسلمين تياد دينيد عدي وهويني وحها بولي مصلح قديرة، وحها بولي أفتهن هضله، وحها بولي قيسي وابشد أقول، وحها بولي مفكر عظيمة. waxyaabahan galbeedka lagu sheegayana maaha macquul buu leeyahay inuu ku sifayn karna haba yaraatee. dacaayadkii dadka badhay wadeen buu wuxuu ka warramaya uu leeyahay wax Maxamed lagu sifayn kara ma aha. ninka raba inuu qadiyada wax ka ogaado una buu yiri quraankiisi waa kan akhri, quraankiisu akhri isaga markhaati waa buu leeyahay waxa kan. Sarstan al-Asuji bay Asuji waa magacii hore ku tilmaami jireen Swedish اللغة العربية. سارنستان الأسوجي نكا كانوا سوريشا سنوى مستشرق وفاهنجري أستاذ اللغات الثانية بروفيسور في اللغات أفكار ثانية الله يقانه. وأنا ضد يومي وحبضا وحقق قري دائرة المعارف وأنا ورورية مخطوطات كان غير برية هي قرآن لدودية. وأنا محرر في جريدتي لوريتري العالم الشرقي بوك بولي ليدادو القرآن الإنجيل المحمدي بوبهي قرآنكو وبايبل كي محمد بولي هي كتاب كلنا بولي ليدادو تاريخ حياة محمد مركا وكور رميو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحليه نبي محمد ومينا إنصاف صمين مينا وعدالة صمين إذا أنكرنا ما هو عليه من عديم الصفات بولي وحميد المزايا هذين الضفر ولي وح الصفوين في عني ولي هي إيا أرمها مضنان تمضني لغو أماني كروه هذين الضفر ولي مينا عدالة صمين وحنرك ربولي محمد معركة الحياة الصحيحة بو قلي يساقو كهر يمي جهلية هي همجية هي وحي اللمدة الشريعة دي سنة وحنوران كرابو دي قانون كيولي من أكمل الشرائع بني آدم وحيستين ايته وهو فوق عظماء التاريخ بولي ولفظ قيس محمد وحنوار كابولي عظماء التاريخ نككر رأيه قبيا قوة ينددك أفك تشرمالكو قبيا ينكي قوتيل لورنشري الأديب الأليماني قوتيبا وحو أورانا يا السنة هدين الرير يروب محي إيا مفاهيمتين أورانا مركا الله يسكت ضربوا لي لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ولما ينن قارب بولي هلكو محمد قارب وسوف لا يتقدم عليه أحد أفكارتين أورانا يا نظرياتين مركا نسكت ضرنا مستقبل كصاص عدنا كما هرمري دورنا بولي ومحوق قوتيسا ولي أديب كان يقول لي ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان تاريخ ده بني آدم كان وحن كبار يقول لي قف وين أو بشرية ضاي قد يطه أيان تاريخ ده بني آدم كبار يقول لي فوجدته في النبي محمد قف أنا نسيره ده بقول بني آدم كهقد يدهر موت هاللغة ده بشرية ده وحن كهلا يقول لي محمد عليه الصلاة والسلام هذا هو حيث الدين تاني ضد كان كور رمينا يقرأ لنا سوق بني معها ضد كالجعل الجارة نبي محمد وهيام النبي نمو وما يسلت ولا بضاي منيها ضد مسلمين وأن لا نهي سلام لماذا قاتل دراد أيوة أمانه mana hadda alle lacag bay ka rabeen muslimiinta oo intay muslimka amaanaan iyagana laalush la siiyo waa qoraalladan inta ugu badan waa xilligii mustacmarka waa xilligii muslimiinta la haystay shidaal lama jirin deeyay wax laalush kartaa caalamul islaamina wala gumaysanay ma aha dad aan oran karno wax dan oo ay ka leeyihiin muslimiinta jira bal cagsiga August Comte odagii loo oran jiray
mu'arikh Turkiya oo Murad in la yiraahdo ayaa wuxuu leeyahay Auguste Comte waa falsafadii Faransiisku ka tirsan waxaanu ka mid ahaa dadkii islaamka necbaaya aad u dhaleeceyn jiray ee diin ahaan mutacassibka ahaa waayo wararka laga soo gaarsiiyay islaamka iyo nabi maxamed baa wararka qaldan u ahaa ee tacassubka sheegaya ayaa waxay yiraahdeen uu soo baxay si taariikhyahankan Turkiga tilmaamayo dabeetana Andalus buu yimi Andalus markuu yimi ayuu wuxuu arkay aathar aad u badan oo muslimiintu ka tageen dabeetana waxa ka dhaadhiciyay dadka waxaan aathar ka tagay iyo waxaan loo sheegaya wax iswaafaqaya maaha waxay yiraahdeen wuu ka socdo wuxuu tagay Roma de Vaticanka library-giisa uu weyn dunida waayadaas Roma markuu tagay ayuu wuxuu akhriyay caasimadda thaqaafa bal kutubta islaamka ka waramaysa kutubta islaamka ka waramaysa markuu akhriyay ninka filosofka ahi eray buu qaadan kari waayay isagu wuxuu baa ku soo baxday nabi maxamed waxna ma akhriyi jiray waxna ma qori jiray dabeetana wuxuu isay suurtagalta diinta intan lagiyo bini'aadamka intan lagiyo dagaalada intan lagiyo dawladda intan lag qof hogaamiyay ayaa jiro aan haddana isagu qoraalkaba aqoonin waxna akhriyi jiray waxna qori jiray say suurtagal u tahay arrintii markay ku adkaatay ayuu boobkii u tagay boobkii Vaticanka u tagay Baba Pius boobkii loo oran jiray buu u tagay Pius taase deetana wuxuu yidhi war ma dhaba boobo محمد إن أنا وإحنا قريشين وإحنا آخريشين وحيها محمد وإحنا ما قريشين وإحنا ما آخريشين بالويلي أوغست كونت فيلسوفيا هاي فرانسيس وحيد هذا وحيلي مركان أنت وجهك اسكندر بحيب وحيلي وخجله منك يا محمد إنني ظلمتك فويل لك يا أوغست إلا إنني أقر وأعترف بأن محمدًا أصغر من إله ولكنه على كل حال أسمى من البشر. وحاول تلمام يا ليهي وخجلاه منك يا محمد ذولي يعني أنتو سدر ضحوح لي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يوحى كشجين وحلا خجلاء طهيب تلمامية هلاك أقص بوصق ناضيبولي لكن هذا بولي هذا وحان قرية الرميسنا هاي محمدين إله كير يهي ويري لكن بني آدم مكوين هاي وأقص قلت وحلا وحان قرية محمد إله كير وأنه إله ما قارين لكن أسمى من البشر بني آدم كينو كوكورية وبني آدم بولي لكن أسمى وأكمل من البشر بولي وحنا ركنا وكوكورية واحد كده قرآن يلاقيه ألفونسو دي لامارتين ألفونسو دي لامارتين وقبيات فرنسيسة قرآنها دبتنا وحد معي تاريخ التركي جايين وحكا قرآن تاريخ التركي القرآن كيو كسمين يبقى وحكو كلفتي دي ده هيستانا إنه وحكاش يا جماعة دول تركي كوا رميو تركي جوا ضد مسلمين تاريخ دي تركي جماعة كيو كوا رميو أيوه يسكت دي إنه النبي محمد وحكاش يا ده بيتنا وحكو سندك كريتيريا وليه ويني ده قف كم حامكو قياسينا صدح شيء وليه صدح ميزان هي وحي نويه وحان قفك انت وعظيم حاكو قياس كلمه قائد وين قلت البامك ككوان وجريتنس اوف بيربوس عظيم الغايه قفك اللي ماشي وسعودي هملو وين انه حبار سنه كلبات نقولي وسمولنس اوف مينز قله الوسائل امكانياتك وهيستينا inay wax yar yihiin ka saddexaadna buu yiri waa outstanding results nataa'ij raa'ica saddexdan shay waa maqaayiista buu leeyahay ku qiyaasi karo cabqarinimada qofka ama weynida qaa'idkaasi
وإنه يهي قائد همل الصريح وقال تيكسني ميل دروكسن كسعودي مينسكي وهيستي رقالة أود دولة نمو حوق وحي وهيستينا وإنه واحد ليميتر يريهين نتيجة دي كدلتي وحقبت كيسونا وين واحد وين يهي صدح ده الشيء ما نكون قيمين نابولا يهي قفكا وحقبت كيسو انت وليك يهي هذا بس صدح ده ما مركا وحقوق قيمين يبولا يهي أعظم عظماء التاريخ وحمار كابولين محمد يهي هدف كيسة هي الدين هي وحي وسيدة هي بشرية ده ماشي ولا الربع سيدة يضرب سنايد هي وحى وهيستين من دولة هيستان أو العق هيستان أو صحراء عربية شوغا ومال لما الدجاجة نكونول وأن مال ثقافة بكتشرتها هي شوغا هي النتيجة دي ودليل مركز كو أجابولين وحورنا إياه محمد وحمار كابولين يهيبوا حكيما بليغا فيلسوفا خطيبا رسولا مشرعا محاربا شجاعا مفكرا عظيما مصيبا في أفكاره وتشريعات أسس إمبراطورية روحية متحدة قوية ويريد إلى مرتين محمد وحمار كابولين حكيم كواقف حكمة بلد فلسوفا بليغة فيلسوف خطيبة افتهد هذا اللي يقال فيلسوفا رسول شرعي ليلية دقايها الجيزية مفكر فكرة بلارنسيدة أولي بفكرة دي صاير مصيبة هيا تشريعات كتري قانون حكمة لوية هي إمبراطورية من الدولة الوين والروحية أولي بمتحدة كتري بولي مقاييس بني آدم كلغو قيمية كاستبوي محمد وحنوار كابود الإنسان الكامل إذن أيها الأحبة عظمته صدق ده شيء ونكان الشيء هديته هي بربوسكا وحقفك الرادين يوي النبي محمد وحلو صدر محي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يا أيها المدثر قم فأنذر بالليل تبرتي سنة تاسعي يا أيها المدثر وركيس تضوب يوم الليل مين اسكيسو هستينا قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر بإلهي كير كيس تضوب يوكع والرب جاء وينيه ومرضى طاهر صو وحماها كقول وهمنا شيغني وحقبطه كمنا شيغني والرب قدرتي والصبر وضدها هيبالوير إذا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي قال يونيفرسال ماسنجر كابوها ماسنجر وسائل ودلين بل انتو غريغيسا كسوبخو isaga iyo labadii nin ee ugu dhadhawaa ayaa gaajay sokad soo xadiista saxiixa kuma idaan rag nabi maxamed oo intuu guriga ka soo baxay goor duhura haddana arkay Abu Bakar baa u yimi Abu Bakar buu ku yiri war waqtigan hadda maxaa gurigaaga ka keenay Abu Bakar baa yiri ilaahay rasuulkiisa oo gaaja maanta ay soo saartay waqtiga nabigu wuxuu yiri anigana gaaja ay soo saartay dabeetana Umar baa u yimi Umar baa yiri war waqtigan maxaa gurigaaga ka soo saaray wuxuu yiri gaaja ay ka soo saartay Umarna صدح دي قفة وقوم مدنا مسلمين تا أو قاعد شيء سكر تدقالة يا لبعي وعنه معها حوالي واحد كما ورمينا مدحوينه أما الرسول كي ومده قاني يلا بدي نيجي نكون حكي ودوا وسوسوا بحيو قاعد شيء سوسوا صار تدقالة هذا شيء كتشوفي عيد المي والذين طريق بين غديرهم قال لي تشوفي الله قصاره حدنا أكبر دولة هي أكبر حضارة أسرع حضارة في العالم less than 50 years أي شيء لا يروي إلا بريد الميل والبكو قاعدين إن دولة مسلمة أو بلارة أو كعام بحضي عدالة وعدالة دي دو قاعد سيسي إن أمضها هي أي أتك أمضها حق والوقف سكرة لكن مبادئ ده حق لقى ما داعين كوا أمضنا مي إن أنت الدين تقاتل حتى أفكودي إلا بينه أفكي كوي ويما قاتل مسلمين تفكودي قاتل ثوماس كارلين ما وحط المامية
dadka badh baa le waxbuu khiyaamayn jiray bay leeyihin ma nin wax khiyaameeya ummad inta le hogaamiyo sameeya buu leeyahy yacni laba eray oo isu cuntaba maaha seef buu wax ku qabsaday bay leeyahy ma seef baa bini aadam qalbigii lagu gediyaa buu odhanaya yani marka uu tilmaamayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo weynidiisa marka uu sheegayo ayuha alaxiba waxaan leenahay nebi maxamed gacantiis hanti lagu raacaa kuma jirin dowladnimo la hungureynayo la isleeyahy waxbay ku siinaysaa kuma jirin bale noloshuu ku jiray oo dhan baa caqabaad iyo wax ka hor imanaya ay taaganaayeen haddana diinta intan le ayuu ka tegay haddaan sidaadan naqali nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo warkiisa maaha war aynu habeen iyo maalin ku koobi karno daa'irat almacaarif albraytaaniya haddaad baadho taxta moxamed magacaa markaad baadho waxay qorayaan moxamed ibnu cabdillaahi mu'asis addiin alislaamiy wulida fii maka waxay kaloo qorayaan waqaliiluuna hum alrijaalu aladiina axdathuu fi lbashariya alaharu alcamiiq addaa'im aladi axdathahu moxamed maxamed bay yidhahdeen ina cabdillaahi waa kii aasaasay diinta islaamiga makaanu ku dhashay ma aasaasina rasuul buu ahaa ilaahay soo diray laakiin gaalo iyagu encyclopediahooda markay qoraya saasay ku qoreen dabeetana waxay yidhaahdeen raggu waa wax yar dunida cid isbeddelku ku sameeyey nolosha iyo raadka lama ilaabaanka ee uu dunida kaga tegay moxamed cid la mid oo ka tagtay bay tilmaamayaan thomas carlyle baa erayadu tilmaamaya waxaa ka mid ah inamaa muxamadun shihaabun qad adaa alcaalam buu leeyahy nebi moxamed waa shihaab waa qori dab leh oo dunidoo dhan ifiyey buu leeyahay qori dab leh oo dunidoo dhan ifiyey waxaan kusoo koobayaa marka qur-aanka iyo xadiidku waxay tilmaamayaan nebi moxamed iyo qiimuhu ilaahay agtiisa ka leeyahay iyo ilaahay siduu u doortay iyo inuu yahay ambiyada hormoodkoodii aakhiriya adduunba fadligaasina uu leeyahay aqoon-yahanka dunida ee wax qoray ama tilmaamay kriteriya bini aadamka lagu kala sooci karo marka taariikhda basharka oo dhan laga warramayo taariikhdii bini aadamkay soo jireenka o dhan marka laga warramayo dadkii wax qiimeeyey cid nebi maxamed ka tagtay ma jirto in badan oo ka midina waxay ku tilmaamayaan inuu yahay rajulu linsaaniya bini aadamka qofkiisii maanta markaa jaraa-idka comediga qora iyo jees-jeeska jaraa-idkeenan halkan maxaa lagu qoraa kan madaxa sii kala jeeda le maxaa la ydhaha ya maxaa la ydhaha maya waxay sheegayaa jaraa-idkeenan oo sawirka yara madaxa kala jeeda le ya dhanxiir jariidadani horta waa jaraa-idka dhanxiirka qora maaha jariidad macana le yani waxay u samaysantahay inay dhanxiirka qorto laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhanxiirka lagu qoraa fransiiska isaga ay ceeb ku tahay isagoo qaanuun marka dhigtay wuxuu leeyahy fransiisku qaanuun la yidhahdo qaanuunu jiso waa qaanuun philosopherska iyo taarikhyahanada lagu maxkamadeeyey rag badan oo ka mid ah qaanuunkaasi wuxuu sheegayaa haddaad maxraqat alyahuud wax ka sheegto hitler dilkii uu sameeyey iyo dadkii uu laayay ee yahuudda ahaa haddaad tidhaahdo tiradu intaa way ka yaray مثلا تاريخيانا قاربا waxay leeyihiin yuhuudi intii Jarmalku xukumayay ku noolay 6 milyan ma yahay saadaradeed seebay u dhici kartaa inuu 6 milyan gubay la iskuma hayo inuu yuhuud badan gubay laakiin waa dood taarikhyahanada qaar ka mid ah tilmaamayaan oo leeyihiin meesha 6 milyan ma deganayna 6 milyan see loo gubay ama 6 milyan ha gaaraan ama ha ka bataan dadkii la gubay inaad yuhuud wax ka sheegto tidhaahdo tiradiinu intaa ma ahayn Fransiiska waxay تاريخيا وقراءة وين الله يقانو معروف أنا لكم محكمة دي مثلا وحكم ده فيلسوف كودي روجيه قالوا دي لو رجع مركي دم بيسلامه
روجر قالوا بوك بقرة إلى هذا ملف إسرائيل بوكا تاريخها وحكم يكدوا ليها لكن ولا محكمة دي دبتنا لوير كودي لوير كيو هدي ما وحليه محكمة دي وحليه قانون كفرنس وحا عيب قوليه ربي جيب عركي يبلوك أمورتي هدان ضفره أما وحكا الشيء قانون هو وقلانيا دد قبي هدي وحلقا الشيء قانون هو كحرية وروح عيب قلت المامية أنا لوير إن محرقة وحلقا الشيء أنا وعيب أنا ويدين ما ليه محرقة يهود وحلقا الشيء ما يهددك تشعل بني آدم للظلميين إن لما أبو ولو يهود لقى يابين نقول الرأي النهي أما يهود أنا أركينا يدو ما أنت واحد ظلمين يسوي وحقوب يسوي هدنا كمسلم هان هاي القرآن كما قلت الماما يا محي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا على الدول قبطانية عدالة إذا دارت في النبي إلهي لي هتلرين الظالم هاني من كجوبي مرنكم بتشرو كما مرمينه لكن واحد الماما هنا وحويا إن لا يرادو حرية القول كفرنس كتيرة ما أقوله إن مسألة الله حلو أما النبي محمد كعياير كيس أنتو هولاند سسوت أقوم الحوينا فرانسيسكو إنه يرادو حقوق ضيادة ميل جحد به حقوق القول حرية القول كميل جحد به وكلامه وحبك كتير فرانسيسكو هقاط حبك ما كتير حرية القول ما أها أنبياء والوعي يا رام الوجهس لا محمد ولا عيسى ولا موسى ولا نبي كله شرفت ده بلاد كانكم بجرتو ضد كم مدن ماموسكا إن العيبية يدا محلو عيبين صح يعني شيء قفك الربصين وحشاقه وحنا قال لي قضية علمية وكهذا تاريخ دي نبي محمد وقرنطي سدود عد هذا الأشياء عيبت على درجته تاكا ما مرمينه قفك لي وحبان نقدينية وسي علمية ما وحنا نقدينية إلهي سبحانه وتعالى قرآن وقت المام يكوي إلهي ذاك لا عابدي قل هاتوا برهانكم بإلهي إن عدك لا عابدوا هاتوا برهانكم برهانتي إن كان بإلهي كوي دليل كاغا كان صح إلهي إن عد لا عابدا إلهي الدليل كان إذن نبي محمد هدان ربطان قالوا ينا وحشاكتان دليل كلام ينلام سي الله تشغل علمي الله هذا أما أن جرائد كعيتما لغو قرا ومد بليون يبر مرة سام لا بليون كل دو ترى دو مقدسات كذا لغو قرا فرانسيس كسجى وحده ما يساه عدة مسألة داسي السلوى حرية القول إلى لنا سنة وبنتود حرية القول معها لو إحنا رجعنا عيبين تهاي العيبين إنك محين ولا واجب مركا إذا كواحد يكون واجبه إن النبي قلنا الدفاع ده أو سيو الدفاع عيسى لا بابا كو إنه أكتي نكو ينادو وهدو يدين كبا أكتي نكو بيلوه قال بانك الدفاع يا توا دكتيس صعي كمان حتى أنا إذا ندكو السنة دي سراعي أو قرآن كل يوم راعيني أو وحش غير روميني إن أدينا عمريسو وكال قيمة بطه فيلسوفيا بالوحي يدي أما وحقاق جامعة الله يقول لك أو إذا كلا قيمة بطه كتابك حقا لك يبي ما هنا لا جامعات كعلم اللي ما شيء لكن ما قاعد دبر إذا لا يوحي حق ربك يبي إذا هذا إنك أكتر إن الدين تنقو قيمة دقك كلو محاول احترامي وإذا الدين تيدا تلوشك معه وإن إنك أكتر إن معنى كل يراتا مرك الله كين إنك أكتر إن معنى كل هذا هاي دقك كله حتى هتو يصير هذا وحشك 1000 حساب وحساب تمية وأروح مكشك رمسك مشينه والله حساب تمية واي وحلوقي هاي عدة هاي ستا هي موقف كتاعك كلابات قضب كلابات عن ربنا هذا ربط أن النبي قوله لسان وحيه إن النصاب بندقنا وناكيسي يدين تيسي ياركت ديسي يتاريخ ديسي يسيرة ديسي إن النصاب بندقنا بشرية دونا نو بندقنا سيدي نصاب بندقنا ده وهذا نبرنا قال كي برتي وحي كو كلفتي إنه تلمامه إنه رجل عظيمها قال دي برتي يا أخي
kuwaas ka hadlaya maaha kuwii u akhriyay si cilmiya haddaynu innaguna akhrino oo baranno ku noqonno waxay keensanaysaa inuu agteennana ku weynaado dadka kalena inaynu gaadhsiin karno laakiin haddaynu maran nahay asaanad ogeyn ba nebigaagu wuxuu mudnaayo wuxuu ahaa nebi maxamed nin weyn buu ahaa dacdi kaa aqbali mayso saxkaa maaha dad meel madhan u ka tiraahdo nin weyn buu ahaa asaanad caddayn karin inuu nin weyn ahaa calayhi salaatu wasalaam inuu nin weyn ahaa muran kama taagna laakiin waa inaad adilladeedii wadataa caddayn kartaa sidaa ogeed baan anigu deriskan caawa dadka badh waxay jeclaayeen inaan ka warramo cadownimada gaaladu nebiga u haysiya kan laakiin waxaan ka doorbiday inaan ka warramo moxamed calayhi salaatu wasalaam diinkeenna halkuu ka taagan yahay iyo bini aadamtinimada dadka qiimaynaya siday u arkaan iyo innaga dhexdeenna saynan wax badan uga ogeyn aynu u baahnay inaynu inagu daraasad dib ugu noqonno oo isku dayno inaynu inagu dadka usoo bandhigno sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin